Ifraax argagax iyo anfariir ayaa la soo diristay, iyadoo gariiraysa oo wadnaheeda garaaciisa bannaanka laga maqlaayo ayay taleefankiisii wacday, balse wuu xiran yahay. Haddana waxay u wacday wiil ay saaxiibo yihiin. Salaan kadib wuxuu ku yidhi, Ifraax saaxiibkaaga wuu guursaday, wuuna aqalgalayaa caawa insha Allah. Maalin hore ayuu ii sheegay inaad kala harteen, wuxuuna igu yidhi gabadhaas Ifraax ah saaxiibo ayaa nahay aniga, balse wax jacayl ah managa dhexaynin. waana gabar aad u fiican oo sharaf iyo ixtiraam leh. Aad ayuu kuu ammaanayay. Ifraax hadalkaas markay maqashay ayaa wadnihii qarxi gaaray. Garaaca wadnaha ayaa cirka isku shareeray, madaxa intuu wareeray ayay jilbaha dhulka ku dhufatay. Markaas ayaa miyir ugu dambeeyey, dhakhtarka ayaana loola cararay. Xilli dambe ayay soo baraarugtay, iyada oo dhakhtarka taala ayayna is aragtay. Waxay dib u celisay xasuusteeda, iyada oo isleh tolo wixii ma run bay ahaayeen mise waa riyo. Ilaahow riyo ka dhig ayay qalbiga iska lahayd. Marna waxay isleedahay, miyaad waalatay? Maxaa kugu dhacay? Maskaxdaadu ma degana miyaa? Riyo iyo cadaan miyaad kala garan ladahay? Ifraax weli baaritaan laguma samayn oo dhakhtarkii ayaa maqan, balse kuwii gargaarka degdega ayaa arrinteeda ku mashquulsan oo si habsami ah u gudanayo waajibkooda inta uu dhakhtarku imaanayo. Ayuub caawa wuxuu isku diyaarinayaa aroos uu la galo Amran, oo iyaduna soo qiyaantay nin ay dhowr sano lacagtiisa ay cunaysay. Mustaqbal ifaaya iyo qoys jacayl ku dhisan ayay arkaan, wax walbana ciyaar ayuu leeyahay. Aroos qurux badana way diyaarsadeen. Habeenkii arooska ayuu asxaabtiisa oo dhan ku wada casuumay arooska. Wuxuu iyadana casuumay gabadhii uu gurigooda deganaa markuu dhaawaca ahaa ee Ifraax ay ku haysay. Gabadhii la casuumay way qaadan weyday, waayo waxay ogayd jacaylka ka dhaxeeyay isaga iyo Ifraax iyo rafaadka ay la soo martay. Markiiba waxay u wacday Ifraax, waxaana loo sheegay inay dhakhtarka taalo. Intay soo carartay ayayna dhaqso u timid. Inta sariirtii ay ku jiiftay dhinac kaga fariisatay ayaa waxay ku tiri, abaayo jacaylkaagii aad sidaan arkay u soo dhaqaalaysay ayaa iigu yeeray arooskiisa, ee see wax u jiraan, ileen nin abaal ma leh. Ifraax intaas markay maqashay ayay inta mar labaad jilbaha dhulka ku dhufatay, kooma gashay. Dhakhtarkii oo jooga ayaa baaritaan degdeg ah ku sameeyey. Xaafadu way ka naxsan yihiin xanuunka ku soo booday gabadhooda Ifraax, waayo xaaladda lama socdaan. Jawaabtii ayaana la wada sugayaa. Isaga oo ehelkii iyo asxaabtii oo dhan ay meesha wada fadhiyaan ayuu dhakhtarkii soo baxay oo yidhi, hambalyo, gabadha uur ayay leedahay oo waa xaamilo, ee ka ilaaliya murugada iyo shaqada. Dadkii meesha joogay markii ay maqleen hambalyadii dhakhtarka ayay amakaag iyo argagax ku noqotay. Hooyadeed oo meesha joogtay ayaa naxdin awgeed indhaheedii ilin ka soo daateen. Dhulkii ayaa la gariiray oo adduunkii ayaa ku ciriiriyoobay. Oohin wax tari maysee dadkii meesha joogay ayaa hooyadii qalbiga u dhisaya oo leh, hooyo Ifraax waa ilmo yar, way qaldantay ee iska samra, Ilaahay carruurta ha inoo hagaajiyee. Kuwa kalena waxay leeyihiin, hooyo isdeji, waxaa laga yaabaa Ifraax in la mehersaday, yaan la degdegini, bal wax hala hubsado. Ifraax jacaylkii iyo dhaawaca way ilowday. Wax walba waxaa uga darnaaday, ugana xanuun badnaaday sumcad xumada ay u soo jiiday labadeeda waalid, hooyo iyo aabe, iyo sida ay ugu tiir iyo tacabbeeleen. Waxay is leedahay yaa naftaba kaa qaada. Iyadoo ka sheekeynaysa maalintaas sida ay noqotay waxay tidhi, geeridu way ii fududayd. Waxaan islahaa ileen dadka isdilaa dhibkan oo kale ayay arkeen. Waxaan ka fekerayay si ay naftuba ii dayso. Waxaan islahaa yaa ku dila maalintaas. Haddii aan ogaan lahaa meel naftayda aan ku waayi karo anigoo aan isdilin waan aadi lahaa. Gabadhii saaxiibadeed ahayd oo ay wax walba u sheegtay ayaa tidhi, gabadha nin ayaa si xun u galay. Qisadii ayayna uga sheekaysay dadkii, waxayna tidhi, Ifraax mar ayay qaldantay, kun marna wanaag ayay samaysay ee ilaaliya. Aabaheed oo meesha ka maqnaa ayaa soo gaaray. Markuu saas u soo galayba wuxuu dareemay inay wax isbedeleen. Maxaa jira ayuu yidhi, si calaacal ah ayaana mashaqada meesha ka dhacday loogu sheegay. Inta uu naxdin la gariiray ayuu kursi meesha yaalay ku fariistay oo tix gabay calaacal ah tiriyey. Gabayga micnihiisu oo kooban wuxuu ahaa, waan ku soo koriyey, waan kugu dadaalay, waxaad u baahatay waan kuu sameeyey, waan ku ilaashanayay, waan kugu faani jiray, waayo ninka saas kuu galay ee silacaan ku marsiiyey.
ayuub iyo xaaskiis amran taleefanadii way iska damiyeen si ay uga nastaan buuqa ama wicitaanka badan ee asxaabtooda, waxayna 7 bax u aadeen magaalo bilicsan oo dalxiis loo tago, isla markaasna loogu talagalay lamaanayaashu inay wakhti ku qaataan, gaar ahaan xilliyada arooska, waxayna soo qaateen toddobaadkii ugu quruxda iyo farxadda badnaa noloshooda. ayuub iyo xaaskiisa wax war ah kama hayaan waxa dhacay iyo in gabadhii Ifraax ahayd ay uur yeelatay midna. Ifraax iyada oo baabaday oo weliba isnacday, nafteedana aan waxba ku falayn ayaa loo qaaday gurigooda. gabar sumcad iyo magac leh ayay ahayde hadda tuki cambaaraystay ayaad moodaa, waxaana uga sii daran dhega hadal iyo afxumada lala soo ag fariisanayo. Aabaheed ayaa hawshii galay, sidii caadada Soomaalida ahaydna wuxuu u xaajo dhigtay odayaashii kale ee wiilka adeerada u ahaa, arrintii ayuuna u sheegay. Odayaashii marka hore arrintii ayay uga tacsiyeyeen, kadibna waxay si habsami ah u wada gorfeeyeen arrintii. Intaas kadib waxay u sheegeen inuu Ayuub aroos ku jiro oo arrintan waxba ka ogeyn, wuxuu dhihi doonana aysan war u haynin, balse waxay yiraahdeen sidii caadada ahaan jirtay, marka hore xaal iyo xumayn ayaan bixinaynaa, marka xigtana wiilka iyo gabadha ayaan isku daraynaa oo aan isku asturaynaa. Tolkii iyo odayaashii waxay yiraahdeen, anagaa gabadha biilayna, gurina u dhisayno, waa gabadheennii, waa gabar tol leh, taas kale isaga ha iska wadwato. Ifraax aabaheed arrintii ayaa lagu qanciyey, wuuna ogolaaday taladii odayaasha, gabadhii Ifraax ahaydna waxba uma sheegin oo hadalba iyada uma bannaano, xataa haddii la dhaho waa lagu dili, way ogashahay. Ayuub oo markaas toddobaadkii arooska ka soo baxay, ayay odayaashii u gogol dhigteen, arrintiina u sheegeen. Hadalkii odayaasha markuu maqlay aad ayuu isku xanaajiyey, wuxuuna yidhi, gabadhaas weligay waxaan salaan ahayn nama dhex marin, jirkeeda ma taaban, way inabaysaa oo sharaftayda ayay igaga ciyaaraysaa. Ayuub waxaa kale oo uu sheegay Ifraax inay tahay gabar ay dhalinyarada wada yaqaanaan oo xumaan lagu xaman jiray. Odayaashii markay maqleen hadalkaasi way yaabeen, waxaa kale oo la xumaatay gabar la wada yaqaano xumaanteeda inay wiilkooda ku daraan. Wuxuuna yidhi isaga oo oohin iska keenaya, gabadhaas ima sabidatay garteeda ii gala oo maxkamad ii saara, waayo ilmo aanan dhalin ayaa la ii saarayaa. Odayaashii ayaa ku noqday Ifraax aabaheed, waxayna ku yiraahdeen, wiilkii wuu iska bari yeelay arrintii, wuxuuna yidhi, gabadhaasi way ima sabidanaysaa, shaqo kuma lihi, xaal iyo xumayn ayaana ku siinaynaa sidii caadadu ahayd, maadaama oo ay sheegatay gabadhu, laakiin uurkaas anaguma lihin. Ifraax aabaheed wuxuu ka xumaaday arrinta uu nimankaas kala kulmay, lama murmi karo, lamana doodi karo, oo odayga sumcaddii baa dhulka ka taala, waayo gabadhiisii ayaa uur aan la ogeyn oo la isku tuurayo wada, wuuna ku qasban yahay inuu aamusnaanta iyo xishoodka maciinsado. Isaga oo wejigiisa hoos geynaya, murugna ay ka muuqato, ayuu yidhi, gabadha anaa dhalay, ilmaheedana waa kayga, anaa korsan, waxba idinkama baahni, wuuna iska tegay. Ifraax waxaa wax walba uga xanuun iyo murug badnaaday markay ogaatay Ayuub in uu soo xumeeyey, uu ku inkiray uurka. Dadka Soomaalida ahi wax ma fahmaane, kolkay maqleen inuu Ayuub uu gabadhii ku inkiray uurka, ayay maalinba 2 islaamood ayaa inta u yimaadaan ku yiraahdaan, eedo bal nin kale oo kuu tegay soo xasuuso, ileen ilmo abtirlaan ahi ma fiicnee. Ifraax markay u adkaysan weyday hadalladii xanuunka badnaa ee sida joogtada ah loogula hadlayay iyo murugadii waalidkeed, ayay go'aansatay inay wacdo Ayuub oo ay ka codsato inuu oggolaado ilmaha inuu isagu dhalay, balse guurkeeda uu diido. Ugu yaraan si ilmaha waa ina hebel loo dhaho, isla markaasna looga yareeyo dheg hadalka faraha badan ee lagu hayo, xataa ilmaha biilka ma rabaan oo anaa korsanayo ayay ku tiri, balse Ayuub isaga oo aad isku xanaajinaya, ayuu caay iyo aflagaado ku canaantay gabadhii sida sharafta leh u xanaanayn jirtay. Bal fiiri, maanta waxay baryaysaa iyada oo ilmaynaysa, isaguna uu aflagaadaynayo inuu ilmaha isagu dhalay sheegto oo keliya, ninku waa abaal laawe aan arxan lahayn. Duruufahaas adag iyo xaaladahaas qalafsan Ifraax waxay ka dhigtay qof kale, cashar adag oo nolosha ahna way u noqotay. Waxay isweydiisay, yaa kuu maqan horta, oo hintase maxay kuu tari, nafta inaad ciqaabto, maxaa faa'iido ah oo kuugu jirta? Dadkan ku dhibaya xaqiiqada miyay og yihiin haddii ilmo Alle ku siiyey,
korso oo toobadkeen, qofna shaqo ha ku darsanin, ayay niyadeeda iska tiri. Ifraax waxay go'aansatay inay samayso isbeddel nafsi ah oo aysan nafteeda intaas in ka badan sii ciqaabin. dhowr usbuuc ayayna seexan oo ay Allah subxaanahu wa tacaalaa baryaysay iyada oo ooyeysa. Ifraax iyada oo sidaas u cibaadaysanaysa ayaa waxay dhashay wiil, waxayna u bixisay Anwar. Ifraax markay ka baxday umushii waxay dhexda u xiratay koriimada cunugeeda iyo inay ka dheerayso cunsuriyadda ka buuxda dadka iyo hadal xumadooda. Qarash iyo xoolo badan ma haysato, balse waxay isku dayday inay bilowdo ganacsi yaryar, guriga hortiisana ku iibiso cuntooyinka fudfudud ee burka laga sameeyo. Muddo ka bacdi waxay bilowday inay ku darto inay xaafadda dhexdeeda ku iibiso waxyaabaha dumarku isku qurxiyaan sida cadarada iyo kareemooyinka. Ugu dambayna waxay xaafadda dhexdeeda ka furatay meelaha dumarka lagu qurxiyo ee make-upka. Ayuub iyo Amran guri ayay degeen, qoys ayayna yagleeleen, si caadi ahna way u wada nool yihiin. Balse Amran waxaa murugo ku haysa ninkii ay muddada sheekaynsan jireen oo biili jiray oo ay ballanta kaga baxday, laakiin isagu wuxuu mar walba ku oran jiray, qaali waan ku cafiyey, aniga ayaa eeda leh oo ku guulaysan waayey inaan qalbigaada jacayl ku abuurto, balse adiga waxba kuma haysto, jacaylkan ku qabana maaha mid aan iloobi doono. Wakhtigaan soo wada qaadanay waa ii xasuus igu qaali ah iyo erayo kale oo aad u macaan. Maalintii dambe ayaa waxaa magaalada soo gaaray oo qurbaha ka yimid ninkii ay Amran wada sheekaysan jireen, wuxuuna u sheegay inuu yimid hadiyad qaali ahna uu wado. Waxay ku tiri, beri casuumaad ayaan kuu samaynayaa ee xaafadda iigu kaalay. Ayuubna waxay u sheegtay in maanta uu xaafadda ugu imaanayo nin ay horay isku yaqaaneen oo qurbaha ka yimid.